sidii saxda ah iminka xisbi aan ka tirsanahay ma jiro koox gaar ah oo aan koox ahaan ka tirsanahayna ma jiro si guudna aniga kuu sheego reer gaar ah oo aan maanta leeyahay dee reerkaasaan matalaya oon si gaara u matalaya oo dabcan dee cid baan ka soo jeedaa ciddaan ka soo jeedaana bulshadaan doonaya inay matalooyin ka mid tahay. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal meel kastood naga daawanaysaan waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah iyo barnaamij gaar ah oo aan ku waraysan doono musharaxa golaha wakiilada Somaliland Cabdikariin Maxamuud Cawil. ugu horeyn Cabdikariin soo dhawo. thank you waad mahadsantahay walaal inaan kula joogo aad baad mahadsantahay. barnaamijka su'aalo kala duwan baan kugu weydiin doonaa. dhawaan waxaad shaacisay inaad tahay musharax ka sharaxan gobolka Togdheer oo u sharaxan aqalka baarlamaanka. ugu horeyn Cabdikariin waa kuma Cabdikariin dadkaan ku garanay bal u sharax. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا لقمان aad baad u mahadsantahay adiga iyo tiimkaaguba aad baad u salaamantihiin. magacaygu waa Cabdikariin Maxamuud Cawil Tarabi. waxaan ka soo jeedaa reer Cawil Tarabi qoyska ama reer Tarabi aadan oo deegaanka hawdka aad caan uga ah. hooyana waa Aamina Cabdi Saalax Faarax. waxaan u malaynayaa Luqmaanow waa qoyska reer Faarax Sanweyne oo aad maqashay inay Sanweynena u geey ama gartay inay Sanweynaa loo geysan jiray. marka xagga hooyana waxaan ka soo jeedaa qoyska reer Faarax Sanweyne. waxaan ku dhashay deegaanka Gaashaamo sanadkii 1986 waxaan se ku barbaaray magaalada Berbera. barbaaristooda insha Allah iyo dugsi quraankii iyo waxbarashadii hoose tii dhexe iyo tii sare qaybo kamid ah baan ku qaatay. marka waxaan oran karaa waa meelaha bilow ahaan markaan soo koobo. way su'aasheeda xitaa waxay noqonaysaa aqoonta iyo khibradda aad leedahay maxay tahay? Luqman aad baad u mahadsantahay sidaan kuu sheegay. horta waxaan waxbarashadayda hoose ka bilaabay magaalada Berbera. dugsiga hoose ee Cajab imika waxa la yiraahdaa Xasan Cawaalan filaya. dugsiga dhexe ee Saaxil markii dugsiga dhexe aan ka baxnay waxaan u soo wareegay magaalada Hargeysa. dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali Hargeysa ayaan badiba 4 sano ee sanad dugsiyeedkii dugsiga sare aan ku qaatay. hase ahaatee imtixaankii shahaadiga ahaa waxaan dib ugu laabto aan ku galay qaybtii dambe ee form 4ka imtixaanka waxaan ku galay dugsiga sare ee Bursade. waxaan tagay jaamacadda Camuud oo kuliyadda waxbarashada iyadana aan maxaan raahday galay. sidoo kale waxbarashada haddaan dhinac isu raaciyo waxaan development studies-ka ama horumarinta bulshada iyadana jaamacadda Alfa faraceeda Burco ayaan iyadana kuliyaddaasaan ka baxay. xagga shaqada haddii aan xagga shaqada soo koobo waxaa shaqadaydii ugu horeysay macallinimo ay ahayd dugsiyada sare ee dalka ayaan ka bilaabay inaan wax dhigista dugsiyada ay ugu waaweynayeen dugsiga sare ee Salaama iyo dugsiga Bursade. muddo kooban markii aan ku jiray Luqmaanow waxaan uga wareegay xagga ganacsiga oo shirkadaha ganacsigan markaas u wareegay anigoo markaa qaybta suuqgeynta iyo iibka u badnaa. waxaan ka gaaray ilaa heer maamule. muddo 8 sano baan ku jiray. sidoo kale waxaan la soo shaqeeyay hay'adaha madaxa bannaan sida NGO-yada BSI oo kale ay ka mid tahay oo caalamiye iyo kuwa loo kalaba. sanadii 2020ka bilowgeedii waxaan bilaabay ganacsi gaara. marka ilaa muddada wixii ka dambeeyay waxaan gacanta ku hayay oo aan rangareynay walaal ganacsiga gaarka ilaa hadda. alxamdulillah marka adigu anoo soo koobaya inahaas ay ahayd si guud waxbarashadii iyo shaqadeedii. way dhanka arrimaha bulshada marka laga hadlayo golaha wakiilada waa meel bulshada lagu matalayo oo shaqooyin arrimaha bulshada lagu qabanayo. adigu Cabdikariin ahaan maxaad khibrad u leedahay ama ka soo qabatay arrimaha bulshada? waa su'aal wanaagsan Luqmaanow walaal. horta marka laga hadlayo arrimaha bulshada ama wixii mutadawacnimo ah de ihsaani waxay ku wanaagsan yihiin inay qofka iyo Ilaahay u dhaxeeyaan. oo runtii mana wanaagsana inay noqdaan kiridda dadka lagu leeyahay oo marka dambe
dee wax dayn ahoo kale oo loo doonto inay noqdaan insha allah waxaan rajaynayaa wixii wanaagee aan qabtayno inay noqdaan wax xagga ilaahay insha allah dee yaalla bulshada walaal saan kuu sheegay gobollo badan baan ku noolaa ama waxbarasho aan u joogo ama noloshaydii koritaankaba ha ahaatee waxaan odhan karaa hadba walaal bulshada aan la joogay wixii dee ixsaan iyo wanaagee ka dhex jira qaybun baan ku ahaa intii awooddayda dee mashaariic waaweyn oo ceelal iyo dee ma jiraan oo aan sheegayaa laakiin wuxuun baan odhan karaa arrimaha bulshada gaar ahaan xagga dhallinyarada runtii dee in badan baan ka soo shaqeeyey oo ama waxbaris ha ahaato oo muddadii dee aan isku dayey ciddii aan wax ku dhaamo inaan aqoonta dib ugu celiyo ha ahaato inaan monitoring iyo mentoring iyo guidance dhallinyarada intii aan wax ku dhaamo aan u sameeyo allahumma ha ahaato shaqaalaysiinta iyo inaan dhallinyarada si madax bannaan oo aan ku salaysanon qofka aqoontiisa iyo hadba intii aan ka caawin karaa ha ahaato kolley dhallinyaro fara badan baa dee jirto ama dee shaqaalaysiintoodii aan gacan ku lahaa ama waxbarashadoodii aan gacan ku lahaa sidoo kalena dee wixii wanaaga ama ixsaanahee ka jira marba bulshada aan la noolahay iyo gobollada aan ku noolahay wuxuun baan isleeyahay dee qaybun baad ka ahayd faham noocee baad ka haysataa dowladnimada somalilan iyo weliba arrimahan siyaasadda iyo shaqooyinkaas luqmaan oo aad baad u mahadsan tahay waa su-aal muhiima aadna u wanaagsan horta intaan la gaadhin fahamka golaha wakiilada iyo qaabka u shaqeeyo waxaa muhiima walaal inaynu isla fahamno oo aynu si dhiibliya u eegno ama si qoto dheer u eegno qaabka dowladnimada somalilan ay u dhisan tahay iyo historically markaynu soo bilowno somalilan tan cusub dib u dhalashadii somalilan xornimadeedii luntay ay dib ugu heshay waxaynu u baahannahay inaynu horta ogaano xaggay somalilan ka timi halkay soo martay qaab dhismeedkeedu siduu u samaysan yahay markaasuu soo baxayaa fahamka ama siyaasi ha lagu sheego ama dee wixii shaqeeya markaa socotaa markaan niyahow sidaynu ognahay jamhuuriyaddeenani 1991 bay dib u dhalatay dib u dhalashada ay 1991 dib u dhalatay waxaan anigu shakhsiyan dee dad badanna waa laga yaabaa inay la qabaane waxaan ku qeexaa inay 3 marxaladood ama 3 stage oo kala duwan ay soo martay marka laga hadlayo dib u soo noqoshadii 1991 ilaa 1997 marxalad gaara bay somalilan ku jirtayoo marxaladdii nabadaynta ayaa muddada mashruuca soconayay wuxuu ahaa marxaladdii nabadaynta iyo in dalka iyo gobollada dadkii bulshadii kala duwanayd ee ku noolayd in la nabadeeyo oo waxaad ogeyd markii aynu dib u soo noqonnaynu dalka dib u soo gallay dee gobollada oo dhan oo aad moodayso sidii ciyaarihii gobollada iswada aragga la odhan jiray inuu dhammaan ay ku jireen khilaafaad iyo dee dagaallo gacanka hadali marka dowladnimada xilligaa la sameeyey aasaasantay waxay ka shaqaynaysay nabadaynta marka la soo gaadho 1997 ilaa 2008 stagekii labaad baa loo soo gudbay oo 1996 baan u malaynayaa markii ugu dambeysay ee heshiiskii gobolka togdheer ama burca ugu dambeeyey halkii nabadda marka laga soo gaadhayey marka 1996 ilaa 2008 markii laga soo gaadho stagekii labaad baa loo gudbay stageka labaad wuxuu ka shaqaynayay fidinta dowladnimada oo in dowlad dhiska in la wada gaadhsiiyo gobollada iyo degmooyinka dalka ay dowladnimadu wada gaadho awood ahaan haba kala duwanaadaan laakiin micnaha iyo calanku inuu wada gaadho 2008 waxaa ugu dambeeyey gobolka sool oo ay si rasmiya u gaadhay dowladnimada iyo maamulku 2008 wixii ka dambeeyey ilaa 2010 oo aan odhan karo laba sano oo khilaafaad doorashooyin ay jireen bay ahaayeen 2008 ilaa 2000 iyo ilaa hadda aynu joogno waa muddo 17 sano 15 sano haddaynu 2010 soo bilowno marxaladdii saddexaad baynu gallay marxaladda saddexaad waxay ahayd marxaladdii horumarinta oo haddii nabadayntii lagu soo guulaystay isla markaana dawlad fidintii lagu soo guulaystay stageka dhiman waa horumarintii horumar marka laga hadlayo horumar bulsho marka laga hadlayo ama qeexniinkeeda marka la qeexayo
waxaa la yidhaahdaa waa awoodda ay bulshu awooddo inay ilaaliso bidqabka iyo horumarka qofka muwaadinka ah markaa walaal marka la qeexayo ee la leeyahay ummaddaasi horumar bay u socotaa ama dowladnimadooda horumar bay ku jirtaa waxaa jira dee qodobo badanoo la taxo oo la yidhaahdo meelaha laga eego ilaa 12 14 baa ayaa laga dhigaa markaa bal intaynaan kuwa ballaadhanba u gelin haddii aynu eegno Luqmaanow afarta qodobee ugu horreeya asaasiga aynu eegno Somaliland muddada maxay ka qabatay caafimaadka waxaan ka hadlaynaa waa dawladda markaa dawladda inoo jirtay maxay ka qabatay caafimaadka maxay ka qabatay waxbarashadii maxay ka qabatay security iyo amniga maxay ka qabatay infrastructure-kii iyo maxaa raahdaa dee waxyaabihii asaasiyaadka bulshada maxay ka qabatay iyo OBE oo kale ay ka mid yihiin afartaas oo kaliya haddaynu isdul taagno mid walba uma baahnaba sharax badan inaynu ka bixino oo marka laga hadlayo waqtigii aan anagu waxbarashada bilowbaynay dee dugsiyada burbursan aanu ku bilaabaynay hooyadu iyada lacagta bixinaysay maxaa raahdaa fee weliba waqtigaas ay ka fiicnaydo hooyadu wixii ay haysan baaba laga qaaday laakiin hadda xaaladaynu ku suganahay way noqotay waxbarashada kale tusaalaan markaynu soo qaado kuwa maxaa raahdaa halkaynu ka dhaqaaqayna taasaa meesha ka marka la yimaado marka qaab dhismeedka ay u samaysan tahay dawladnimada Soomaaliland runtii waa qaab dhismeed cajiiba waa saddex dhadhaar oo ismiisaamaya dhadhaarada hadda taqaano waxa dheriga lagu sameeyo haddii afar laga dhigo markaa dhagxaanta ama dhadhaarada haddii laga dhigo afar digsiga markaa meesha saaran si fiican buu u ilaashamaya laakiin waxa ka xidhmaysa hawadii oo cuntadii ma karsamayso hadda ma fahamtay markaa dheelitirka waxa ugu wanaagsan in saddex dhadhaar la helo oo hawadiina la helo oo shaygii loo baahnaa uu si fiican u karsamo isla markaana miisaankii u dheelitirmo markaa qaabka ay u samaysan tahay walaal dawladnimadeenu horta waa qaab cajiiba runtii saddex dhadhaar oo ismiisaamaya oo ah fulintii iyo judiciary iyo dee maxaa raahdaa maxkamadii iyo dee cadaaladii baahdi garsoorkii cadaaladda iyo maxaa raahdaa baarlamaantariga guud ahaan marka la isku daro oo sharci dejintiya mushkiladdu halkay ka dhacaysaa marka waa in la isweydiiyaa mushkiladdu waxay ka dhacaysaa ee dhibaatadu ay ka imanaysaa saddexdan miisaane ismiisaamaya haddii uu midka kala liqo halka uu dhaawacu ka imanaya bulshadu ay dhaawaceedu ka imanaya waa kaas xukuumadaheennu way isbedelaan haddana duruufaheennu waa isla kuwii duruufaheennu waa isla kuwii sababtuna waxay tahay miisaankii ayaa meesha ka maqan oo xukuumadeennii waxay afka gashanaysaa mar walba golihii sharci dejinta iyo golihii cadaaladda labada oo weliba cadaaladdu waxaabay leedahay inkastoona cudurdaar dee saxa ahayn laakiin haddii aynu nidhaahno tusaale ahaan dee waa dad la magacaabayo oo si uunbay u xilan karaan which is not right laakiin sharci dejintu meesha laga hadlaya sharci dejin kaliya maaha ee shaqada wakiilada laga rabaa waxa weeyaan inay xeerarkii iyo shuruucdii dalka sameeyaan isla markaana ilaaliyaan hadda ma fahamtay marka walaal mushkiladdu halkay ka taagan tahay ee bulshadeenu maanta ay tiiha kaga jirtaa waxa weeyaan waa bahdii sharci dejinta isla markaana ilaalin lahayd shuruucda ayaa walaal shaqadeedii si wanaagsan Luqmaanow markan soo koobo aan u haysanin marka labada gobol kalena shaqada ku ilaalin lahayd dabcan halku ka imanaya marka waa isliqniinkan dhadhaarada isma miisaamayaan marka haddii aanu midba midka kale xadkiisa ilaashanin oo aanu awoodiisa garanin soo dhow walaal waad mahadsan tahay adigu inaad tartanto maxaa kugu kalifay walaal waxaan odhan karaa horta waa sax waa su'aal meesha ku jirta waxaad aragtaa Luqmaanow iminka dhibaatooyinka iyo mushaakilaadka aynu tirinaynay ee aynu ka soo sheekaynaynay waa mushaakilaad aynu la noolahay qolyaha iyagaa hore ee aan sidaan kuu sheegay dee waqtigaas soo kacaamay dawladnimadu ay samaysmaysay waxaan si fiican u dareensannahay halkay wax ka soo bilaabmeen oo annagoo yaryaroo carruura baanu dee sidii fahamkayagu yaanu gaadhsiisnaaninba dee ilaa heer aan iminka dee oo marka dib u eegtaad garanaysaa siday wuxuu ahaayeen markaa mushkiladaha bulshadii aan isbeddelka lahayn muddadaa dheer ee bulshadiina intaa aad ku dhex nooshahay
ee hooyadii dhowr iyo sagaashankii duruufta qabtay isla hooyadii maanta joogto 2025 isla duruuf la mid ah oo ay qabtaa runtii waa wax qofka damiirka qofka muslimkaana damqaya oo intaa waxaan sugaynay dawlad iyo dad ku fekeraya inay walaal ummadda si fiican waajibaadkoodii wakiil marka la leeyahay golaha wakiilada kale tusaalaha laga hadlay waa wakiilkuna qof buu u shaqeeyay wakiil u yahay oo hawlihiisa u qabanaya marka walaal waxaan oran karaa horta taasi waa kow oo qof fahamsan duruuftii haddana dareemaya cid furanaysa oo sidii saxda ahayd inaanay jirin marka waxaan isleeyahay waqtigii ku habboonaa faham ahaan aad fahamsan tahay baa keenaya oo duruufaha bulshada dee aan ku dhex noolaa kuna dhex noolahay ilaa hadda waa marka koobaad mar labaadka dee waajib bay noqonaysaa wixii aad istiraahdo marka adigu wallaahi malaha halkaa waxbaad ka odhan karaysaa kelmadna ha ahaatee dee in ilaahayba ku weydiiyaa laga yaaba hadal aad ka odhan lahayd ama waxaad marka aad qaban kari lahayd marka walaal waxaan isleeyahay bulsho ahaan guud ahaan dee gobolka aan maanta doonayo si guud anigu oo qoys iyo cid gaara runtii ma doonayo inaan umana sharaxnay inaan u sharaxnaadana dooni maayo inaan gobolka togdheero dhan matalaan doonaya haddii aan kuu sii raaciyo luqmaanow suuratu yuusuf ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku sheegay inay tahay axsan alqisas ay ku jiraan ee qur-aanka qisooyinka ugu wanaagsan ee qur-aanka inay ku jiraan marka haddaynu soo qaadano nebi yuusuf markii laga soo daayey buhtaankii iyo been abuurashadii ay beenowday maligii boqorkii meesha haystay uu yimi ee uu doonay boqorkii inuu ku soo daro dowladnimadiisa nebi yuusuf waxa uu ku yidhi qaala ijcalnii calaa khasaa'ini alardi innii xafiidun amiin macnaha nebi yuusuf wuxuu soo qadimay oo uu sheegay dee inuu diyaar u yahay inuu qaban karayo xilka uu weliba yahay qof xafiida amiin ah caliimna ah caliim innii xafiidun caliim macnaha inuu aqoon u leeyahay wuxuu qabanayo qofku waa kow ayay yidhahdaan culimmadu tafsiirka iyadoo tafsiiro badan la saaro laakiin cilmiga lagala soo dhex bixi karay waxa weeyaan in qofku haddii uu isleeyahay wallaahi halkaa waxbaad ka qaban karaysaa inaanu dib isu dhigine dhallinyarada runtii aan ogahayoo badan oo fara badan oo si isu ilaalinayana waan odhan lahaa inay soo dhiiradaan waan maxaa dhahdaa waan kula talin lahaa marka dee waxaynu kala dhex bixi karaynaa aqoon ahaan qofku hadduu isleeyahay waxbaad qaban karaysaa oo dee laakiin lilaahiya ee aanay noqonin dee kaga gud bridge aanay noqonin marka waxaan isleeyahay meelaha haddaad isu geygeyso dee cimru risaalana waan joogaa oo waqtigii risaaladana waxaan u malaynayaa inaan ku dhowahay marka meelaha markaan isu geeyo waxaan isleeyahay waxa I can handle it. Okay, thank you. maxaad doonaysaa inaad beddesho niyahow horta walaal waxaa jirta dee meeshaan maanta u socdaa aan leeyahay doonaya haddii ilaahay xaggiisa laga helo waxa weeyaan waa xubin wakiilada ka mid ah ma ahan meel fulin iyo dee qalin uu yaallo oo bulshadii aad wax badan dee kaga celin karto qalinkaaga oo maaha ama ku shaqaalaynaydo maaha si toosa laakiin sidaan kuu sheegay waa awood ka muhiimsan awoodda fulinta runtii marka waxaan isleeyahay haddaan soo koobo horta marka koowaad walaal waxaan doonayaa inaan bedelo habfekirka qofka muwaadinka iyo qofka wakiilkaa u arko marka labaadna inaan bedelo oo aan habfekirka qofka wakiilka ahi oo waa magac saxa wakiil moogta ee xildhibaanka ahi habfekirka uu isagu u arkana kursigan inaan runtii bedelo marka waaqaca bulshada haddii la dhiso oo bulshadu ay waaqaceedu dhisanto oo ay ogaato qofkay diranayaan maxay xaq ugu leeyihiin maxay leeyihiin waa inay taa ay ogaadaan marka waxyaabahaan isleeyahay waad bedeli karaysaa waxa weeyaan inay bulshadii maxaa dhahdaay wax soo dooranaysay runtii ay maxaa dhahdaay waaqacoodii isbedelay ogaadaan qofkay diranayaan ciduu yahay ama maxay ku leeyihiin xaq xildhibaankuna uu ogaado dee maxaad xaq u leedahay aan isleeyahayna waa meelaha faashilku ka yimaado oo qofkan xildhibaankii iyo xildhibaan noqon meesha tag mooyaane inaanay jirinba marka hore dee project iyo mashruuc uu la tegaya ayaan isleeyahay marka waxaan isleeyahay bulshada horta habfikirkeeda inaan runtii wax badan aan ku kordhin karayo qof la joogo insha allah
waay su-aasha kale waxay noqonaysaa ma u ballan qaadaysaa inaad noqoto shaksi dantooda matala ee aan matelin dan xisbi dan qabiil iyo dan deegaan gaar ah niyahow horta aad baad walaal u mahadsan tahay haddaan su-aashaas soo ururiyo horta sidii saxda ah iminka xisbi aan ka tirsanahay ma jiro koox gaar ahoo aan koox ahaan ka tirsanahayna ma jiro si guudna anigaa kuu sheego reer gaar ahoo aan maanta leeyahay dee reerkaasaan matelayaa oon si gaara u matelayaa oo dabcan dee cid baan ka soo jeedaa ciddaan ka soo jeedaana bulshadaan doonaya inay mataloy ka mid tahay oo sax dadkaan doonaya inaan matelo oo aan si ka duwan sidan hadda wax u socdaan aan u matelo ayay maxaa idhaahdaye ka mid tahay luqmaanow inuu qofku yidhaahdo dee afkaar xisbi afkaar kooxeed afkaar reereed maxaa idhaahdaye inaanu qofku marka hore matelo ama uu maxaa idhaahdaye galo waxa weeyaan interest shaksiyana oo isagaaba marka hore horta keenaya maanta haddaad og tahayna xataa xisbiyadeenni walaal waxay u garbaduuban yihiin oo ay sugayaan maanta qoysaska iyo jifooyinku inay dad u keenaan halkay ahayd inay xisbiyadu iyagu keenaan dad oo markaa taasi aan keenaynba horta xisbiyadeenni ayaa xataa awood tirtay ismana oga xisbiyadii inay awooddoodii cid kale walaal ku wareejinayaan waa kow waayo dan yaroo kooban bay maxaa idhahdaye ka fikirayaan mar labaadka walaalo aniga muhiim iima aha oo macnihi wax weyn iima aha kursigan doonistiisu oo iyadu xagga sare walaal ku xidhan tahay inaan helo iyo inaan waayo oo wax xagga ilaahay maxaa idhahdaye ku xidhan qodobka keliya walaal aan isu taagayaaba waxay tahay ee runtii xaqiiqaduna ay tahay in bulshadaydan guud ahaan aan damqasho aan dareemayo oo ilaa aan maalintan yaraa la soo koray stiil ay taagan tahay marka walaal sida xaqiiqantaa iminkana reer kuma doonayo inay igu doortaan markan meesha tago cid aan ka tirsanahay oo aan idhaahdaana ma jirto sabab aan u idhaahdo xataana oo aan hadhow idhaahdo afkaar ahaan oo xataa xisbiyadeenni ma garan karayo anugu iminka waxay ku kala duwan yihiin ma sheegi karayo haddaad tiraahdo sheeg waxay ku kala duwan yihiin aan idhaahdo qodobadaasi ku kala duwan yihiin dee ma garan karayo waayo interasiyo sokaad moodaa dee in xisbiyadeenna qudhooda ay ku mashquulsan yihiin oo midda baabada isagu gaar uu leeyahay uu ka shaqeynayo marka maadaama aanan cid aan odhan karin qofkaasaa dantii bulshada si gaara uga shaqaynaya ciddaan arkay danta bulshada si gaara uga shaqaynaysa dabcan haa laakiin waa inay priority-ga bulshadu ay noqotaa waa inay awoodda bulshadu usoo noqotaa waayo bulshada si aan la ogeyn ba awooddoodii looga qaaday haddii su-aalaha ay ku jiraan waynu ku socon doonaa waay qorshaha ma leedahay qorshe qoran ma leedahay adu oo aad doonaysaa dhow inaad ku shaqayso ha sax walaal qorshe qoran oo runtii dad aqoon-yahanoo dee fikir wadaag aanu leenahay sidoo kale aanu ka soo wada shaqaynay baa runtii jira haddii aan is idhaahdo tusaale ahaan 2 iyo 3 inkastoon wakhtigeedii dee la gaadhin bulshada si fiican loogu soo bandhigayey haddana haddaan 2 iyo 3 kaaga taabto luqmaana waxaan is leeyahay qodobada ugu horeeyaan priority-ga horta ka dhiganaya waxaa ka mid ah tusaale ahaan gobolka Antonio maanta inaan isu sharaxo ama aan u taaganahay gobolka Togdheer 15 xildhibaan baa laga soo doortay ama 15 wakiil 15ka wakiil anigu taariikhda dee ninkaa muddadaas soo joogayna waan ahaa taariikhda ama selection ha ku yimaadaan ama election ha ku yimaadaane maan arag bal adigaa saxafiya haddii ay jirto waad ii sheegaya meel 15kii xildhibaan intay isugu yimaadeen ay kaga hadlayaan dantii gobolka anigu weli maan arag Togdheer taasi waxay ku tusaysaa inaanay u imanin ee ay qoysas ka yimaadeen marka horta qodobka aan isleeyahay aad uga shaqaysi runtii waxaan isleeyahay inaan mideeyo xildhibaanada 15 ah haddii aan ka mid noqdo oo ilaahay qadartiisa aan ka mid noqdo inaan mideeyo oo dad afkaar gobol marka koobaad markay gobol la taagan tahay oo ilaalinaya dantii gobolka oo ilaalinaya mashaariicdii iyo miisaaniyadda gobolka wixii ugu jiray oo danihii bulshada ilaalinaya waa kow qodobkaan isleeyahay aad uga shaqaysi qodobka labaad walaale aan maanta doonaya inaan halkan kaaga sheego waxa weeyaan qorshahayga waxaa ku jirta in 4 biloodba mar dhammaan deegaanada aan tago oo aan maro oo aan ogaado xaaladda intii aan ka gaari karo mar saddexaadka haddii waxa qorshahayga ku jira walaalo horta waxa wanaagsanaan lahayd inay
golaha wakiiladu xafiisyo ku yeeshaan gobollada waay intaan ogahay kuma laha markaa taa inaan ka shaqayno haddii golaha wakiiladu uu awoodo inuu xafiis ku yeeshana xafiiskaa inaan sidaan uga shaqayn lahayn runtii aan ka awoodda saarno haddii la waayana in anigu xafiis gaara aan gobolka ka sameeyo magaalo madaxdiisa ka sameeyo waana wax kooban oo xataa kharash badani kuma baxayo in qol yar oo dhowr kursi la dhigo oo xoghayn inan ama inankuu doonaba ha ahaatee wax weyne kuma baxayo oo dadkii markaa xogtoodii ay ku ururiyaan waa dad ballaaran oo dee boqolaal kuna soo ilaa milyan gaaraya dadka gobolka ku nool markaa beeralaydii xoolo dhaqatadii khudradlaydii dadkii hiliblayda ahaa duruufahoodii bahdii caafimaadku ay ku ururiyaan oo xogtoodii markaa mar walba ka marka qorshayaal iyo kuwo kale oo insha Allah meelahaasaan kaaga taaban karaa aan isleeyahay iyo qoranayo cabdikariin aad u mahadsan tahay gabagabadeen ku dhownahay cabdikariin oo xaaladaha guud ee dalka ee ka taagan sidaad u aragtaa se maxay tahay aragtida xambaarsan tahay ee imika kuu muuqataa isleedahay sheega wax ka bedel markaad tagto xafiiska niyahow horta waa anigii walaal kuu sheegayay oo waxaan u malaynayaa on in su-aashii hore ay daba socoto ama ay u soo ekaanayso marka duruufaha dalkeenna ka jiraa kuwa maaha horta si fudud maalin iyo laba iyo wax kooban runtii wax lagaga qaban karo marka ta ugu muhiimsan aan isleeyahay bulshada waxbaa lagaga qaban karaa duruufahan jira ama systemka jira waxaan isleeyahay habfekerka bulshada markaad ku noqotaad la joogto ee ay dadku fahmaan baahida iyo mushkiladda halkay taallo iyo awooddooda markay fahmaan walaal dadku waa kow horta taas muhiimad mar labaadkana qofka xildhibaanka ah inuu fahmo awoodda iyo waajibaadka uu leeyahay oo aanu u arag tusaale ahaan sidaan hore kuugu soo qaaday maxaa keenaya inuu dheeligan yimaado oo wakiiladeenna ama xildhibaanada cidda ina matelaysaa mar walba aanay xal loo gaari karahayn saddex qodob baan is idhaahdaa anigu shakhsiyan markaan eegay marka koowaad waxaa jirta qofka xildhibaanka ah ee imanaya walaal wuxuu ku imanaya qaab qabiil reer iyo qoys buu imanaya reerkii iyo qoyskii uu yimi iyaga qudhoodu isku duruuf maaha meelo kala duwan bay ku nool yihiin kama wada jawaabi karaya markaa oo reer de cid baa reer meel gaara ku urursan oo ku oodana wax laga shaqeeyaa ma jiro sideedaba waa kow oo deegaanku muu imanin iyo bulsho dee uu matelayo qoys yar baa meel qodobka labaad xildhibaan inuu noqdo meesha taga mooyaane qorshe iyo nidaam u dejisanaayo maxaa ka dambeeya iyadana ma jiro oo ku talagalay meesha ku qodobka saddexaad ee aan isleeyahay walaal oo runtii mid aad inoo dhaawacaysa waa dana shakhsiya oo in mas-uuliyaddii iyo wakiilnimadii walaal dadku u dhiibteen waayo qofkaad wakiil u tahay maanta haddii la yidhaha luqmaan wuxuu wakiil u yahay hebel oo maraykan jooga ayuu hantidiisa wakiil ka yahay dee waxaad ka shaqaynaysaa hantida iyo faa'iidada qofkaad wakiilka u tahay sax markaa ninkan xildhibaanka ee wakiilkaah horta wuxuu wakiil u yahay bulshada waa inuu ka shaqeeyo dantooda iyo baahiyaadkooda laakiin waxaad mooddaa in badan oo ka mida dee xildhibaanadeenna ay uga faa'iidaysanayaan dana shakhsiya hadda walaal ma fahamtid marka insha allah waxaan isleeyahay oo aan aad awoodda u saaraya aan kuna kalsoonahay inaan runtii bedelo horta qofka xildhibaanka ahi inuu ka muhiimsan yahay habfeker ahaan uu ka muhiimsan yahay awood ahaan uu ka muhiimsan yahay xafiis kastoo dawliya kana awood badan yahay kana muhiimsan yahay waa awoodda laakiin markaad isticmaashaad garato dadkuna inay iyaguna ogaadaan inay yihiin awoodda rasmiga dadkan samaysa waa inay gartaan awoodda rasmiga inay yihiin oo keliya xilliga doorashada xataa aanay ahayn awoodda rasmiga inay iyagu yihiin oo awooddoodii waa anigii kulahaa si dadon baa looga qaatay oo halka qodob ee maanta dadka u yaallaa waa awooddaa doorashada wax ku doortaan laakiin si aanay ogeyn ayaa looga qaatay oo ah walaal waxaa looga qaatay tusaale ahaan doorashooyinkeennii hore tusaale yar baan kuu soo qabanaya ee madaxtooyada milyan iyo dhowr boqol baa diiwaan gashanaa haddaanan qaldanayn dadka codeeyey wax boqolkiiba 40-50 ka yarbaa ayaa u soo baxday doorashooyinka intii la filayay dama intii diiwaan gashanayda doorashada inay u soo baxaan loogu talagalay doorashada codayaan boqolkiiba 40 boqolkiiba dhowr iyo 40 bay ahayn baan u malaynaya accurately ma hayo laakiin meelahaasay ahayd taasi maxay ku muujinaysaa dadkii inay very disparate yihiin
inay aad u niyad jabsan Aad u yihiin niyad jabsan. waxay ka niyad jabsan yihiin doorashooyinka in loo soo bixi waayo laba sababoodba caadiyan keena kow inay doorashadani tahay doorashooyinka ay nimanka dictatorsku qabtaan oo dee qof dooranuun la dooranayo taa uma soo baxaan waxaanay ku guulaystaan boqolkiiba 90 iyo boqolkiiba 95 iyo ta labaad waxa weeyaan in ay waayaan dadku afkaar ay kala doortaan oo wixii bay isku noqdaan isku wada macnaha waxaad ogaanaysaa markaa bulshada inta badani inay ka daalan tahay systemka iyo nidaamka ay maxaan idhaahdaa aynu u shaqeyna marka qodobka muhiimka waxa weeyaan in mentalityga iyo habfikirka dadku ay isbedelaan awoodooda la tuso qaab qabiiliya baa looga qaatay oo inta soo baxaysa waxa laga yaabaa xataa inay siyaabaha oo niman siyaasiyiin ahoo hadba halkay arkaan inay dabayshu u socoto isu bedelaya oo haddii wadaadnimo ay ku jirto maanta wadaadda noqonaya hadday reernimo ku jirto reer noqonaya taasaa dadkii moogtay awooddoodii lumisay dee ka qaaday haa mana dareensanaa awooddii dadku say usoo ceshan lahayn marka insha allah waxaan isleeyahay guud ahaan waxyaabahan isleeyahay adaad uga shaqaysid dhammaan waa meelaha walaa aan isleeyahay ugu dambeyntii cabdikariin maxamuud waad mahadsan tahay musharax sare musharax waraysigan aan kula yeelanaynay ugu dambeyntii maxay tahay fariintaada barnaamijka ka faa'iideysan aad dadka u diraysaa bismillaah walaal horta fariintaan dirayaa waxay noqonaysaa laba qolaan doonaya inaan fariinteeda u diro labada qolaan doonaya inaan u tiraa waxa weeyaan waa dhallinyarada rag iyo dumarba dhallinyaradu maanta duruufaha dalkeenna ka jira walaal aad bay u dareensan yihiin aad bay uga dharagsan yihiin qaabka ay noloshu u socoto inaanay isbeddel nololeed iyo isbeddel mustaqbal ku gaadhahayna way og yihiin xalkuunbaa meesha ka maqan markaa dhallinyarada fariintaan u diraya waxa weeyaan awooddaynu haysanaa horta waa awoodda doorashada falilaahi alxamd iyo gacanta inuu codku ku soo noqonayo ama mid madaxtooye ha ahaato ama mid wakiilo ha ahaato ama mid deegaan ha ahaato fariintaan diraya walaal waxa weeyaan inaanay calooshoodu shaqaynin caadifadooduna aanay shaqaynin ee uu shaqeeyo caqligooda dhallinyarada waxaan fariintaan u dirayaa waa fariintaan qolada labaad ee aan fariinta u diraya walaal waa haweenka gaar ahaan haweenku maanta waxay yihiin lafdhabarta bulshada maanta iskuul hooyaa taagan oo dumarkiibaa walaal taagan saldhigyadii hooyooyinkiibaa taagan maxkamadihii hooyooyinkiibaa taagan suuqii iyo shaqadii walaal waxaa taagan hooyooyinka cidda laga faa'iidaysanayo duruuftooda iyo dantooda walaal laga faa'iidaysanayaana ee u fududaynaysa siyaasigii danta lahaana walaal waa dumarkii waa haweenkii ayaa laga faa'iidaysanaya markaa walaal haweenka anoo dareensiinaya dee muhiimadda ay leeyihiin oo nolosha la'aantood maanta aanay dhaqaaq lahayn waxaan isleeyahay fariintii allah u naxariistay maxamed ibraahim warsame uu kaga tegey maansadiisii dabahuwan ku jirtay ee uu lahaa haweenkuna waa dugaal deeqdaada badh bay yihiin waxaa lagu daaqayaa siday u dul leeyihiin waxaa lagu daaqayaa siday u dul leeyihiin shar daalacan baa jire iyagu dadan bay dhasheen rabbow ducadayda sii buu yidhi abwaanku rabbow ducadayda sii samaa dumar noogu dhiib raggana dumadooda saar waxay dumiyeen rabbow haddaanay xumaanta dayn markaa walaal insha allah intaasaan fariintayda kooban aad iyo aad baad u mahadsantihiin bulshaweynta reer somalilandna dhammaantood waan salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad ayuu mahadsan yahay musharax cabdikariin maxamuud cawil oo aan ku wareysanaya hargeysa kana mid ah musharaxiinta golaha wakiilada ee somaliland u tartamaya gaar ahaan gobolka togdheer uga tartamaya dhowaana shaaciye aad u mahadsantahay cabdikariin mar kale aad iyo aad u mahadsantahay allah ku sharfo